qiimaha badan waa reerka is yaqaana maxaan ka wada waa reerka is yaqaana maxaa laga wada waa reerka is yaqaana ha laba qof oo waxaa jira intaasoo sano isqabto oo is aqooninba isma yaqaanaan maxaa loo baahan yahay in la isbarto waxaan rabaa inaan caawidin sheego haddaad doonaysaan insha allah inay reeraheenu noo najaxaan baraninkaaga waxa laga yaabaa inaad dhahdo baraninkaaga waan ba aqaanaaye shan baan isu dhalay sheekh sax shan baan isu dhalay 30 sanaan isqabnay waa maxay ninka aan saacadan baranayo waxa laga yaabaa nolosha aan doonayo iyo qoyska aan doonayo in hadda ka hadlayno inay ka xigtay inaad isbarataan hal tusaalaan ku siinaya mesela warqadii qalin baad soo qaadaysaa odayga u dhiib adiguna warqadii qalin qaado waxaad dada ii soo qor waxaad jeceshahay macaaba gabdhaha yarkaa si fiican u dhegaysta si fiican u dhegaysta waa jaanis inay soo marin baa laga yaabaa wiilasha aad la sheekaysanaysaan weydiiya waxa ay jecel yihiin haddaan isguursanno maxaad jeceshahay aye cuntada maxaad ka jeceshahay cuntada noocee jeceshahay cuntada hadduusan ninka uusan ogeyn cuntaduu jecel yahay ma taqana waxa dhacaya midishaga gabar deriska abuu maalin maalmaha ka mid a cunto ka soo cuni suu iska aamusan yahay miskiinku waxaad adigu u walwalaaqdu iska cunaa kolba waa bariis iyo baasto soo sama waa Soomaalidu waa inta bariis baasto koorsa laga bartaa taga koorsooyinka meelaha hadaad cunto fiican xataa aqoonin koorsooyin taga lacag ku bixi koorsada tag lacag ku bixi baro sida cuntada loo sameeyo wacdeeda ma ha kafta marka war xaqaa waay gabar dariska cunto ka soo cunaya marka dambe ku iman wuxuu leeyahay heblaayo maanta cuntada inoo soo karisa dad ogtahay macaankeeda saa markuu leeyahay macnaheedu waa maxay adi tacbaan baa tahay waay adi sakaraad baa tahay baro marka weydii cuntada nooca uu cuno gabadhuna waa sidoo kale iyadu ku weydiinaya waxaad weydiisaa waxa uu ka caroodo weydii maxaa ka carootaa maxaad necab tahay oo ka ilaaliya waxa laga yaabaa inuu ku dhaho aniga ma jeceli anigoo maanta oo dhan maqnaa inaan guriga soo galo adoo telefoon ku hadlaya adnimo kuma jeclo wadi soo ma ogidin meel ku qoro ha hadaba markuu soo dhow yahay telefoonka iska dhig عادي وكو شيغay ma jeceli buu yiri inaan guriga soo galo adoo telefoon ku hadlaya sax wuxuu ku yiri ma jeceli inaan adiga waxa tiri ma jeceli nin soo daaha oo soo wareego oo fadhi ku dir ku ani waxaan rabaa inaan isku bar seexano cisha markaa tukato kaalay ii imow aniga ila sheekayso ana sheeka u baahan u sheeg hadda u sheeg hadda u sheeg isbarashada la sheegay waa inta kadib waxaad weydiisaa maxaad ka carootaa markuu ku sheego haddaad carooto maxaa ku dajiyaa hadduu ku dhaho ani markaan caroodo waxaan jeclaa inaan baxo daaha baxee ridda haw istaagina maxay reeruhu ku dumaan reeruhu waxay ku dumaan nin xanaaqay islaantiina ay isku tiirisid albaabka tiri ma baxaysa haddii kale inaad furtaa meeqa reer intaa ku dumay ma baxaysid ilaa weyd ay furtaa لكن gabadhi baa waxay tiri anu hadaan caroodo qolkaas ku soo xidhaa hadaan caroodo anu waan inaan hadlaan jeclahay gabdhaha qaar baa markay caroodaan naqaska inay iska sii daayaan jecel inay meesh fadhiyaan baa laga yaabaa laakiin adu hayla hadlin hadaan xanaaqo ninka waxa la rabaa marka la xanaaqdo marka intuu aamuso sida culimada qaar kood aheen islaantaadu markay carooto beer u seexo caruurto dhanna seexi dariishadana soo xir TV-gana dami islaantu mar xaq ku dhaafto mar xaq ku dhaafto mar xaq ku dhaafto marka dama iidu baadhihi bal hadda farfariista bal waa xal waa caadi haday islaantu ku dhaado anigu hadaan caroodo naqaska iska sii daaya laylamana hadlo ninka daawadaadii wuu hayaa hadaba marka carooto waa aamusi shid adiguna naqaska iska sii daa qolaba sibay ku daawowday
labadan isqabta haddayna daawadii isu sheegin cudurkana isu sheegin sidee reerkaa ku dhaqmi karaa waxaa la yidhahdaa marka isbarasho isbarta ninkaaga insha allah haddaba reerka qiimaha badan waa reerka isyaqaana